dadaw ku dhicin oo dadaw cala farkuu yeesha calankayna qaashaa markaan ciil u kala jeexno anna cadadii soomaaliyeed ciifa kala raacdo in caddiinna kala qaybiyee ciduba meel aad hub casriya inaan qaadanay meydku cadad dhaafo walaalkiininii canuna dhiig ciidda lagu daadsho amba sida ciraaqiya ku weedlayso cadad sheegto caqligiinna yay gelin colaad lagu heshii waaye intaan cara ilaahayna qaba nabadii soo ceysha soomaali ceebteedu waa curata diimane soomaali ceebteedu waa curata diimoone culamaa u diinkay haddaan caaqil talihayn haddii aan ciroolaha marnaba loo coddiganayn intaan kala cadgoosayna ee nabaddu ceeriyeyso addoommada ilaah cuuta ee caasiyaan nahay casiiskey wixii gaarmaree ciifa dhalinaa saciiddaa gariirtoo dadkaa cudurka laayaa mana caafimaadaan qabiil niman ciseeyaah intaan cara ilaahayna qaba nabaddi soo caysha soomaali ceebteedu waa curata diimane dalkii hooyo waanu xiisay maadidaysaan dib u laabteen dawlad samba daybna siiyey war dadkaygow maadna keentaan dalkii hooyo waanu xiisay maadidaysaan dib u laabteen dawlad samba daybna siiyey war dadkaygow maadna keentaan أكتوبر انتي كنا فويدي إله يو جنة الفردوس الأعلى كورابي آمين يا الله مسكح لا قد
murtiyey maguuraan taariikh la soo maray sheeka micnayse xamar waa madhaafaan waana lagama maarmaan malkii dalkeen iyo kartidii midnimadan labadaba ku miisno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar waa madhaafaan واتعي مركنا وحاول ساميريسي murtiyey maguura taariikh la soo maray sheeka micnayse xamar waa madhaafaan lagama maarmaan malkii dalkeen iyo kartidii midnimadan labadaba ku miisno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamar waa madhaafaan مقدشو عمري كشفتها ويا سمري يا ذا معنيسو سندكيبا موجدو بقول المشروع نفط محبة قليوي مدنتا سما اسمه waxaan shaqada soo gaajay 6 subaxnimo markaana salaadu waxay soo galeysay 6 iyo rubi saadada salaadii subax ayaa meesha ku tukaday kadibna shaqadeedii meesha ka sii watay وياذن مقالة قرح بامديسو وليبا واذا مسيسي قلب عمال مذوى فالحونا مقديبي بدا الشام مديدة ظهورنا الله مريا وياذن مقالة قرح بامديسو وليبا واذا مسيسي قلنت مقدشو taariikhda waa 6 caawa oo aan videogan edit gareynayo bishuna waa bisha 3 ama Mars 2020 halkan aad daawanaysaan goordhow waxaan gaari doonaa isgoyska Zobe anigoo aadi doono dhanka kale Banaadir isla markaana mari doono ilaa dhulkaas Banaadir iyo sii mari doono ilaa Casablanca waa daawan doontaan videogan insha Allah taala markii aan ka siiyo macluumaad dhameystiran muddo badan oo aan ka maqnaa dalka Soomaaliya runtii aad iyo aad ayaan ula dhacay qaabka horumareed ay dadku ku wadaan shaqooyinka nooc walba way kala socotaa halkan waa meeshii Soomaalida faraha badan lagu baabiyay isgoyska Zobe dhagaxan ayaa la dhigay haddii aad rabto inaad dhinaca Banaadir aadid waa inaad meesha ugu soo horeysay hadda bajaajkan ka leexanaya ayaan ka leexan doonaa dib baan u noqon doonaa waayo isgoyskii waa la xiray totalmente ma furna si ayna zaxmad iyo u noqonin hadhowna markii aad dhinacan ka timaado number 4 saasoo kale markaad isgoyska dhaafto meeshan dhagxaanta 14 waa kan October taaladii loo dhisay ilaahay jannadii firdaws la ka waraabiyo
markastoo aad gaato fidqada yar ee walaamiga laysaga dhex bixi karo ayaad kasoo laaban karta haddii aad rabto dhinacaas buulxoogay. inkastoo aan dalka ilaa hadda aanan ku arkin wax traffic light ah ama samaafar haddii aad u taqaanaan. bajaajyadu aad bay u badan yihiin, dhalinyaradu oo dhan shaqay heshay. soo socoto waxaad arki doontaan muuqaalo ka duwan muuqaalada hadda aad daawanaysaan. waxaan waqti geliyey inaan helo muuqaal degan oo aan gacanteyda ku duubay si walaalaha sideyda oo kale qurba joogta ah ee muddada maqan ee aana dib uga soo laaban ay u helaan muuqaal dhammaystiran oo aanan ahayn muuqaal bug ah. muuqaalkan hadda aad daawanayso waxaan duubay khamiis taariikh 5 bisha 3 2020. waa tahay jidkan waa jidkii aan rajeynayaa tegayay ilaa iyo Digfeer haddii aanan qaldayn, walow aan wadanka ka maqnaa muddo ka badan 10 sano. marka waxaan rajeynayaa haddii aan idin siiyo macluumaad qaldan inaad dhammaystiratiin, waayo wadanka ma aqoonsan kartid haddii aad ka maqnayd 10 sano. haddii aad 10 sano hadda kadana kasii maqnaato sidoo kale bay noqon doontaa, balse wadanka waa dhismay. waxyaabaha qaar ee ka dhimana way imaan doonaan insha allahu tacaala, sida meel dadka ka gooyaan malahan. waa yeesha oroday ku goynaysaa, odaygood orod ku goynayaa, ariga laftirkiisa orod ku goynayaa, xayawaanku orod ku goynayaa. meesha traffic lightna ma jiro. baabuurtana mid baa ku baasaya, mid kalaa sii baasaya, 3 baa hal mar isbaasaysa, baabuur kala ka hor imaanaya. haddana ilaahay maqaadirtii si farsamaysan mana isku dhacayaan. adiga waa allah wata wehel uma baahna. yaanan warka ugu daalinin, ku damaashaad dalkaaga hooyo. muuqaalka dhabta ahna daawo meeshaa doonta ka joog. waana waa qaabka fiidiyoga uu u duuban yahay inaad la dhacayso. markaan firaaqa u helana inta aan dalka joogo insha allahu tacaala fiidiyoyo kuwa lamid oo kale waad soo duubi doonaa insha allah. dhisa dhulka dhisa walaalayaal dhulka dhulkeena haneefsane dhisay ankura dhisay awada dhisay dhisa dhulka dhisa
dalkii hooyo waanu xiisay maadidaysaan dib u laabteen dawlad samba daybna siiyey war dadkaygow maadna keentaan dalkii hooyo waanu xiisay maadidaysaan dib u laabteen dawlad samba daybna siiyey war dadkaygow maadna keentaan